waqtigii layna taageerayay inuu inaga dhammaado inagu aynu lumina oo laba jabhadoodo isku ag dhacay aynu noqonnay waxaa kaaga maraga kullikii madaxweynuhu shalay la yeeshay safiirka ingiriiska wuxuu markiiba ku dhawaaqay inuu dhankaga xabad joojin baan ku dhawaaqnay yuu la dhawaaqaya xabad joojinta yaa lala gelaya ma cabdimadoobe yaa lala gelaya ma argagixisada habeen walba hubku u imanayo war walaa xasan sheekh baa kuu seexanaya walaa kuwa ka sokeeya kuu seexanaya dagaalkan adigun baa lagu fashilaya dalkanna waa lagu baabiinaya siyaasaddiinni haddii ay beesha caalamka u gudbin kari weydo waxaa lagala dagaalamaya meesha inay argagixiso tahay oo adiga weli lugta lagu hayo nasiib darray kuu tahay waana fashil siyaasadeed run baan kuu sheegaya faragelintooda baa dalka ku socota ciidanku wuu hakisan yahay ciidanku wuu niyad jabay ciidanku 30,000 askari oo bilaa dagaala oo xakamuhun cunaya oo weliba iyaga laga tuugto madaxda laynta qorshaha madaxdu waa baabinta ciidamada cabdilaahi ibraahim oo keliyana ka soo kabanin madaxweyne ismaaciil cali khayraanad ka soo kabanin waxaanad ka soo kabanayn taliya ku-xigeenkii ismaaciil waxaanad ka soo kabanayn taliya abiteeb saraakiishii lagaaga dilay meesha wixii intaa sugnaa hal yoom buu ku sugan yahay dagaalkiisu xamed xasan cabdilaahi jarif baa janan ahaa wakhtigii uu qabsaday buuhoodle axmed saciid cigaa ku yidhi imiga ma waxaan ka aqbala oo aad dhex joogtaa taliya jarif xeradii ciidamada buuhoodle adeer dalkaygii baan jooga buuhoodlaanan joogaan kaala soo hadlayaa buu ku yidhi maxay qaadatay saacad bay qaadatay waxaa laga sheekaynayo 31 guuta ay dul joogaan laascaanood jarif saacad buu ku qabsaday shalay bahay maanta inagoo intaasoo dagaal inagu dhaceen maanta inagoo intaas sarkaal laynaga dilay maanta inagoo oo aan dhiig baxnay ayaana haddana fari ka qodnayn rajada laga qabo dagaalka laascaanood xukuumaddana u soo jiidaysa fashil siyaasiya waayo marka ingiriisku ka taliyo dalkaaga marka maraykan ka taliyo dalkaaga marka lagu soo fargeliyo adigaa gudbisa waa farriintii adigaana sugay cadowgaaga xalaba qolaygu tiri waxa uu yimid darwano oo may madaafiicina u timaada baan ku iyaga ku sugay mana u imanaysa wala dadaalasa oo caroonaysa oo dhii qabta oo dhagroobasa iyo dad matalaya ina beesha caalamka qanciyaan meel ma wada galaan dagaalka Soomaaliland fashil buu dhow yahay xukuumadda Soomaaliland waqtigeedii fashil buu ku dhow yahay ciidamo aan la dagaal gelinayn ciidamo magaalo ku wareegsan ciidamo isku xiliirsan maxay hayday sida covid-ka oo kale soo dadka lama karantiimeyn jirin Puntland waxay u baahan tahay in Soomaali oo dhan laga karantiimeeyo dadka Puntland degan waxay u baahan yihiin karantiimo lagu xidho ummadda laga karantiimeeyo waayo meel walay garaan ama xamara ahaato ama halkan ahaato meel walay garaan buu isareynaya marka iyagana waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed annagu iska karantiimeeyna idina iska karantiimeeya waan salaamayaa meel aad joogtaan bahambaliyaan dilay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee jiida joogana waxaan leenahay salaan iyo sharaf iyo cisi korkiina ha ahaato ka dhaxaysa hay'adaheeda iyo kuwa kale ee hay'adaha samafalka sheegta inay noo soo qaadaan qorshe iyo amar laga soo bixiyo xamar ay lagu dhaqmaanay Soomaaliland ka helaan waa xaraan ma aqbalayno deeqaha layna siiyo ta ugu badani ee laynu oranayo waxa xamar bal ictiraafsan yahay oo tagayna ninkii ictiraafsan isaga tagay dawladdan xisbiga kulmiye inaga maanta xilkii dalka hayna qodobada mas'uuliyadda koobaad ee ina saaran ee xisbiga kulmiye xukuumadda iyo madaxtooyada iyo wasiirada iyo xildhibaanadaba uu faray ee xisbiga xeerkeenu faray waxa weeye koow waa maxay mudnaanta koobaad ee xukuumaddu